ferma le macchine, vero? Sì, vai in barca lì. Una alla volta, via lì. kumanaan muhaajiriin ah ayaa sanad kasta ku dhintay tahriibka badda Mediterranean-ka ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhimatay qaar kalena waa la laayahay kadib markii dooni ay saarnaayeen muhaajiriin ay kula degtay magaalo xeebaadka Kuwaza ee dalka Liibiya saraakiisha laamaha ammaanka ee halkaasuna waxa ay sheegayaan in dadkani ay doonayeen inay gaaraan dalka Talyaaniga oo ay ka gudbaan badda Mediterranean-ka waxaana wali soconaya baadigoobyo loogu jiro dad kale oo la laayahay oo doonidu degtay ay saarnaayeen sida ay qortay BBC-da inta badan meydadka hadda laga helay magaalo xeebeedka Al-Zuwara ee dalka Liibiya ayaa waxa la sheegayaa in ay ka soo jeedaan dalka Pakistan war qoraal ah oo madaxa ammaanka ee magaaladaasi uu ku daawacay barta Facebook uu ku leeyahay ayaa waxa uu ku sheegay in dadkani dhintay ay kamid tahay haweeney u dhalatay dalkaasi Liibiya 3 qof oo kale ayaa laga badbaadiyay doonta rogmatay waxaana 2 kamid ah dadkaasi ay yihiin muwaadiniin kale oo iyaguna u dhashay isla dalka Liibiya balse ilaa iyo hadda ma cadda xilliga ay doontani ka ambabaxday xeebaha dalka Liibiya balse saraakiishu waxa ay sheegayaan in sababaha doontani ay u qoosatay ay tahay in la buuxdhaafiyay oo xadkii loogu talagalay doontu in ka badan la saaray arintani ayaa noqonaysa mid dhif iyo naadir ah in shacab reer Liibiya ah ay isku dayaan inay ka tallaabaan badda Mediterranean-ka si ay u galaan oo ay u gaaraan qaaradda Yurub waana wax ugub ku ah indhaha caalamka in la arko muwaadiniin Liibiyaan ah oo ka tallaabaya badda Mediterranean-ka dalka Liibiya oo kamid ah wadamada ku yaala qaaradda Afrika ayaa in muddo ahba ku jirtay qalalaasa siyaasadeed iyadoona xukuumadii Allah u naxariistay madaxweyne Muammar al-Qaddafi wixii ka dambeeyay oo dalka Liibiya galay burbur iyo dagaal sokeeye inkastoo Soomaaliya ay kamid tahay wadamada ku yaala qaaradda Afrika ee dadkoodu ay u tahriibaan qaaradda Yurub isla markaasina sii maraan Liibiya si halkaas ay ugu galaan badda Mediterranean-ka haddana doonta hadda ku degtay magaalo xeebeedka Kuwaza ee dalka Liibiya lagama soo sheegin muwaadiniin u dhalatay Soomaaliya oo saarnaa doontaasi Cabdulqaadir Cumar Cabdulla Fiidka magaalada caasimadda ah ee Muqdisho Somali Cable TV